kulankan oo runtii ahmiyad gaar u leh bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada GIZ oo Jarmalkana aan si gaar uga mahad celino doorka muhiimka ah ee Soomaaliya siiyeen si looga saaciidi lahaa in dhalinyaradooda la baro farsamada gacanta oo weliba qorshahan ballaaran oo ay wadaana u yahay mid tababarka macallimiinta isugu jira iyo curriculumkii manhajkii TVET-ka isagana loo dhigi lahaa dhalinyaradeenna isla markaana ay ku heli doonaan aqoon iyo waayo-aragnimo shahaado taas u sahlaysa inay shaqo helaan. Marka barnaamijkan waa barnaamij shaqo abuura, waa barnaamij dhalinyaradeenna hagaya inay bartaan xirfadaha adduunka looga baahan yahay weliba si caalami ah. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradaha dowladda federaalka oo arrintan ayagana juhdi badan geliyey sidii dhalinyaradeenna shaqo abuur loogu samayn lahaa. wasaaradda waxbarashada, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, iyo wasaaradda qorsheynta iyo dhammaan hay-adaha dowladda. waxaan kaloo rabaa inaan si gaar uga mahad celiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed ayagana isku taxallujiyey in ay fursad siiyaan dhalinyaradooda oo xarumo farsamo gacanta ka hirgeliyey dalka oo dhan siiba magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kaleba oo Xayla Bariise ka mid tahay, Hana Academy ka mid yihiin. annaga maamulka gobolka Banaadir haddaan nahay waxaan ahmiyad gaara siinaynaa sidii dhalinyarada oo 75% ah shaqo abuur ay u heli lahaayeen. sida shaqo abuurka ay ku heli karaanna waa inay bartaan xirfadihii ay shaqo ku heli lahaayeen ayagoo cidna u baahan. marka runtii tan waa ahmiyad gaara dhanka dowladda federaalkana ay siinayso, annaga maamul gobolka Banaadirna aan siinayno gaar ahaan magaalada Muqdisho oo aad ka warqabtaan in maaragtay dhalinyaradeedii muddadii 30 sano ahayd duruufo aad u adag ay ku soo koreen taasoo dhaxashay inaysan helin waxbarashadii tayada lahayd oo loo baahnaa. marka si taas beddelkeedii looga kabto waxay u baahan tahay dhalinyaradeena weliba gabdhaha in shaqo abuurka iyo farsamada gacanta ayaga si gaar ah. marka waxaan si gaar ah uga codsanayaa shirkadaha iyo hay-adaha dhaqan gelinaya barnaamijyada inay tixgelin gaara siiyaan gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii muhiim u ah horumarka bulshada. waan ognahay xaaladahooda ay ku jiri jireen, maantana aan aragno waxbarashada inay ayaga ugu horeeyaan. marka taasna dhiirigelin gaara inaan siino ayaa loo baahan yahay. farsamo gacan annaga kama sheekeynayno, waxaan halkan u nimid waxay tahay bal inaan talooyinkiini wixina dhegaysano, fikrada la isdhaafsado, gaar ahaan Xayla Bariise iyo Hana Academy fursadaha ay dhalinyarada siiyeen, sida caqabadahoodii waxyaalaha lala qaban karo, sidii loogu fududeyn lahaa inaan ka wada shaqeyno. ahmiyad gaar ah ayay annaga noo leedahay. wasaaradaha halkan joogana runtii waa uga mahad celinayaa doorkan. mar kale dowladda Jarmalka iyo shirkadda GIZ ayagana waxaan leenahay waddanka ku soo noqoteen waa kaga mahad celinaynaa, laakiin haddana waxaa la rabaa sidii bersamaadkii sida aad maaragtay xarumo lagu yaqaanay ay u jireen oo loo hirgelin jiray ayagana in ay dadaalkooda kordhiyaan oo aysan wixii ka dhigin mashruuc oo ay ka dhigaan wax ummadda u baahan tahay oo ummadda loo hirgeliyo. midda kale waxaan ognahay in waxaan mashruuc keliya aan laga dhigino dadka wax barteen waxaan rabnaa inay dadka kale si voluntary wax ku baraan. annaga hadda mashaariic waxaan ka hirgelinay 3 degmo,
waxbarashada dadka waaweyn oo dhalinyaro volunteer ku shaqeeya ay dumarkii wax baraan habeenkii iyo galabtiiba. Marka arrimahaas oo dhan waxaan ku gaari karnaa 30 sano naga dhumay anagoo qof walba wax yaqaanana uu wax baro, qofkan wax aqoonina uu wax barto, si weliba isxilqaan ah markii lagu darana aan isleeyahay inay hagaagayso. Marka runtii aad iyo aad kaga mahadcelinaa, waxaan idin rajaynaa maanta arrintan inay mara dhal noqoto, GIZ iyo qorshaheedii iyo inuu isagana si degdeg ah u hirgalo.